hablaha xuquuqda u dagaalama Nobel Prize ka qaata Peace Nobel Prize nimanka yuhuudda la heshiiya adabka labay muslimiintu qaateen labaduna midi waa Najib Mahfoud awlaadu xaaratina buu ku qaatay ma akhrideen wadin la'aan wuxuu qoray diin la'aanta lagu siiyay midka kalena waa Turki isna diin la'aan baa lagu siiyay wuxuu yiraahdaa cultural muslim baan ahay kuwa wax aaminsan meey dhaqankaygu baa islaamka ka soo jeeda adabka kuwa leeyno siiyayna waa kuwa Nobel Prize ka qaateen yahuudo 15 milyan hina marka la eego cilmiga dhakhtarnimada iyo biology-ga wada socda 196 Nobel Prize baa dunida la bixiyay 49 bay yahuudi qaadatay chemistry marka la eego 158 baa la bixiyay Nobel Prize 28 bay yahuudi qaadatay physics marka la eego 158 baa la bixiyay 45 bay yahuudi qaadatay dhaqaale marka la eego 66 Nobel Prize baa dunida la bixiyay taariikhda aynu sheegnay ilaa 2010 kii laga gaadhayo 28 bay qaateen that means wixii Nobel la bixiyay science ku saabsanaa 15 milyan yahuudi boqolkiiba 25 bay qaateen Gillespie oday la yiraahdo Mareykan ani gaboobay hadda dhowraysiga shajira laakiin waa culimada looga dambeeyo taariikh al-ulum science history ee wuxuu leeyahay markaan eega buu yidhi medieval period ka waqtigii loo yaqaanay al-usur al-wusta quruntii dhexe dunida 130 caalim baa jiro magacooda la xusi kara buu leeyahay oo aqoonyahan iyo technology scientist iyo technology saxan jiray 120 kamidi caalamka muslimka ka yimaadeen buu yidhi Yurubna 4 bay ku lahayd waa 130 kiin ee dunida aqoonteeda hogaaminayay kama waramaya hadda tii sharciga ahayd ma aha waxaan ka waramayaa tii kale 130 kiin ee hogaaminayay dunida waqtigaasi medieval period kii oo dhan ayuu gaalkan Mareykan wuxuu leeyahay 120 baa caalamka islaamiga ka yimi Yurub oo dhan 4 baa ka yimi mulxidkii Niels haba wuxuu isweydiinaya war siday u dhacday buu leeyahay bilyan iyo dheeraad muslim bilyan iyo bar dadku dhadhow ama 1.3 1.5 waxay doonaan sheegaan intaasoo muslima oo aabayaasho dunida hogaaminayeen oo cilmi ku hogaaminayeen maanta inay wax la'aan dhacda xagay ka timi wuu isweydiinaya waa nigaale markaas wuxuu leeyahay 15 milyan inay inta helaan bilyan iyo bar muslimeena in la waayo iyagoo shalaytana dunida iyagu hogaaminayay waliba su'aasha wuxuu ku daray uu leeyahay dadkii aan taariikh cilmiyeed lahayn iyaga kama hadlayo buu leeyahay kuwan taariikh cilmiyeed bay lahaayeen buu leeyahay waa wabiyadood dadkii aqoonta tan hogaaminayay xagay ka baxday buu leeyahay isagu isu jawaabaya inkastoo laga yaabo jawaabtiisa inayna wada raacin waxa jawaabihiisa kamid ah wuxuu leeyahay labada kala jar ba isbedelay labada dhaqan ba isbedelay qolana cilmiga ay qiimaysay qolana cilmiga ay qiimo la'aan ka dhigtay واي قولنا علمك وقيمة قولنا علمك وقيمة لا ننقض تصالحها عالم الإسلام وده وحنا ندير حب الله جامعات بكوية له دنيا عربين بيدادان جامعات كوية لا بقول كيبا شريعة الضواطن ربع قرن يودن بي قرن قلواترات بالله نسي حين أخبرنا بهذا يقولون هاي بقول كيبا شريعة الضواطن واحد جامعات عربي لا ذي يجو جامعات كي الدنيا وجوه الرئي فاس بوجوه الرئيسة أزهر باكو حكته زيتونة كو حكته ومالينية كل اللي وضع جامعات وجوه الرئي تفاس بوجوه الرئيسة أزهر برا لبقى جامعة القرويين جامعة أزهر يجو جامعات الدنيا هدي الله شيء وحي وجوه الرئي هذا النساء يقول هاي وحي باب هرنا يقول هاي وقرطبة وبغداد وكوا كان مقالوا يقول هاي وسمرقندا ما انتصه ودن كان يرير يهودا فلسطين تبوبتي ودن كودا ير شن يلا باتن جامعات هاير إديكيشن باكو يلا marka loo qaybay bay dhaadeen milyankii qofba afar jaamacadood bay helayaan halkii milyan ee yahuud ku nooleba afar jaamacadood baa u dhisan 250 kun qof baa jaamacad leh innagana waxay dhaadeen caalamul islaami jaamacad ka dhisan iyo dadka marka la isu qaybiyo 3 milyan ba hal jaamacad leh 3 milyan ee muslima ayaa hal jaamacad leh dhanka haddaan ka eegno jaamacadka marka la qiimeynayo waxa lagu qiimeeyaa waxay tilmaamaan waxay dhaadaan global ranking
sida jaamacadka dunidu u kala qiimo fiican yihiin مثلا waxaa jira saddex group oo wax qiimeeya Shanghai ranking mid la yiraahdo oo jaamacad ay leeyihiin Chinese kuwa bilowday 2003 baan filayaa meelahaasi GBS well running mid la yiraahdo QS well running mid la yiraahdo iyo jaridadan time la yiraahdo mid ay leedahay saddexdaas haddaad baadho saddexdaba shanta boqol ee jaamacadood ugu horeeya sanawaadka qaarkood jaamacad muslimba kuma jirto ama xabad ba ku jirta hadda waa shanta boqol ee jaamacadood dunida ugu horeeya definitely waqti dhaweyd wixii ka horeeyay labada boqol ee jaamacadood ee dunida ugu horeeya muslimba kuma jiro waxa jaamacad muslim ku taala kuma jirto iyadoo saddexda qiimeed kriteeriyada waxay wax ku qiimeeyaan ay waliba kala gadisan yihiin oo haddii systemkan ay ku soo bixi weydo ay ahayd systemkan kale inay ku soo baxdo waqtiyada qaarkood shanta boqol ee jaamacadood maraykan oo qura 168 keligii leh ingiriis oo qura keligii 40 leh labaatanka jaamacadood dunida ugu horeeyo 17 maraykan keligii leh saddexda soo hadhay laba ingiriis leh tobanka jaamacadood dunida ugu horeeyo 8 maraykan baa leh labana ingiriis baa leh haddaad eegto shanta boqol ee jaamacadood dunida ugu horeeyo 34 Japan baa leh idan haddaad sidaa u eegto G7 la sheegaya dee waa jaamacadkii ugu waaweynaa uu dadkii haystay waa dadkii cilmi baadhista sameeyay waa dadkii aqoonta lahaa walidalik ma jecli ceebta muslimka inaan sii baadhbaadho laakiin intaa waxa ka sii daran adigoo aan jaamacad haysan wax tarto oo qiimo samaynaysa imikay dhowr midho sacuudigu leeyahay ayaa mid sacuudiga leeyahay boqolka koowaad hadda soo gashay laakiin labada sabjiga ay ugu fiican tahay mid baa af ingiriisiga yara oo ay jaamacadda sharaada dunida ka tahay af ingiriisiga soo wax ka tarayo marka loo eego Malaysia dhowr leh dhowrka boqol ee jaamacadood ku jira siba labada boqol ee jaamacadood ugu horeeyay hadda afar bay leeyihiin Turkigu intan dambu soo socda laba jaamacadood buu ku lahaa intaa waxayna kaga sii daran waxoogaageenni iska rafaadka ahay intay soo saaraan intaas bay haddana qaataan intii lacagta lagu bixiyay la soo helay la soo saaray markay bislaadaanna hijratul uqul baa bilaabantay waxay yiraahdaan brain drain maskax dareer bay u bixiyeen waxa la yiraahdaa wadanka Mareykan sagaashanaadka wixii ka dambeeyay 12 milyan buu qaatay bal 1995 kii wuxuu bedelay fiisayaasha uu bixiyaa noocayiin waxay ku tilmaamaan sanadkii 2003 wuxuu bixiyay 200 oo kun oo fiise oo 100 kun oo kamid programmers qurayiin si kale haddaan soo tilmaamno waxay yiraahdaan Mareykanku inuu dunida ka horeeyo qura ma rabo ee wuxuu rabaa inta xidigaa in laga inuu ka horeeyo saadaradeed midkaad adigu lacagta ku bixisay soo saartayna wuu iibsanaya wuu qaadanaya waxay yiraahdaan dhakhaatiirta carbeed ee dunida joogta boqolkiiba 50 Yurub iyo Ameerika joogaan dawa carabta dhakhaatiirta u baahnay dhakhaatiirta carbeed ee dunida joogta 50% kamid waxay degan yihiin North America iyo maxay iyo Yurub ay degan yihiin waxay engineer lahaayeen oo dhan boqolkiiba 23 iyana galbeedkay jiraan waxay culamo khubara lahaayeen boqolkiiba 15 galbeed bay jiraan ingiriis oo qura dhakhaatiirta joogta boqolkiiba 34 baa carab ah waxay ingiriis ka dhakhtara boqolkiiba 34 baa carab that means intii lacagta lagu bixiyay ama Yurub loo diray la soo saaray ama meelahan baa lagu camcamiyay la soo saarayna intiina lacag bay ku qaateen dib bay u iibsadeen saadaradeed waxay dhahdaan ardada caalamka carbeed ay u dirto inay jaamacaadka reer galbeed ka soo baxaan boqolkiiba 54 maan dib u soo noqonin xamala shahaadaat al-ulya bay dhahdaan shahaadooyinka sare culimada sidatay carbeed sanadkii 2000 marka la tiriyo 450 kun baa joogay galbeedka maxaa soo hadhaya marka haddii marka hore laga aqoon badnaa oo laga jaamacada fiicnaa oo laga wanaagsanaa marka dambana waxoogaaga yar aad soo saarto
قال ملاحدة ذا كم ده دكتور ميشيا كاكو لا يلاحظه أسأل كيس وايد داير لكن هو أمريكان أيه وحليه هاي سيليكون فالي ما تشرين بوليه هدانو H1B فيزا أنو تشرين بوليه فيزا تشرين لا يلاحظه H1B أمريكان كوبيهيو هدان فيزا هسيتشرين بوليه سيليكون فالي ما تشرين أيه الدنيا دومانت واجي هره شركتها الدنيا ugu lacagta badan leh tobanka shirkadood ee dunida ugu lacagta badan leh waxay ahaan jireen shidaal iyo gawaadhi tobankuba shirkadaha shidaal ka shaqeeya iyo shirkadaha gawaadhida imika mid ama laba kaga jirta tobanka shirkadood ee dunida ugu lacagta badan leh aqlay ku xoogsadeen commodity ma haystaan qalab ma jiro waa programyo wax la mid ah waa Amazon shirkadda ugu xooga badan leh waa قال كان ويندو قال محل ورجل بيل جيت وقال كان كلام كجواد ده يوحصو صار عيرك وحود رايسنا محل هذا اسكو صدق وكان فيسبوك أو سمايستي وجوجل قرادة سمايستي لو أردا سمايستي لما أنت وحبي قرقريرونا برنامج سمايستي وحكلوا أي غني بيجرو برنامج أي الدنيا بليونير لوي haddana laba shirkadood ka mid ah hadii dhaqaalahooda la isku daro caalamka islaamiga oo dhan waxay soo saaraan bay ka dhaqaalo badan karaan laba shirkadood ka mid aqoontu xooggaasay dunida leedahay aqoontu xooggaasay dunida leedahay oo dadkii commodity waxay yiraahdaan khamka materialka khamka dunida kuma horumarto ee manufacturing bay ku horumartaa ma jira bay leeyihiin wadan dunida hogaamiyay oo aan industrial ahayn ودن معدن سوق هذا ما شدال سو سارا ما مايننج سو سارا هرو مرسن دنيا ما جرو نيكا سوول ولا قوم بهرو مرسن كاسم بدنيا كوش قايستو حوله هذا هايستا كان لكن علاش واي كو يالينا لغا سوق هذا وان عيل كان لغا بخاويس قيمه ما سمينيو ساوغيد اي waxay isku dayeen mareykan maanta galkaasi mishaya kaaku wuxuu leeyahay science PhD waxa sameeyay mareykan degani boqolkiiba konton dabad bay ku dhasheen mareykan uu kubay dhalanay that means wixii aqli dunida jiray wuxuu isku dayay hadduu wax barasho ku keeni karo waa inuu lacag ku keeno oo dabeetana uu sawirkiisa wax ku baro afrikadan madow ah taqaaniin waxay yiraahdaan 20,000 oo caalim oo ay leedahay bay sanad walba Yurub ka qabta dabeetana bay yiraahdeen khubaro la talisa si ay u soo kireystaan 4 bilyan oo lacag oo kale ku bixiya qiyaas inaad caalim soo saarta marka hore mise bilyan buu jooga markii la soo saarayna kuwaas qaatay sanad walba 20,000 bay ka qaataan khubaro ah oo Afrikaan madooba haddana hadhow baa la yiraahdaa ama jaamacaadka professor u baahan ama dawladda la taliyaal u baahan 4 bilyan oo lacag ah haddana lagu soo qaataa nin cado dib loogu soo kiraysta oo la keenaa si uu inoogu noqdo wacdadayna la talinaya meelaha ka jooga hadduu aqligu caynka markaa u fakaro Iraq markii la dumiyay Ingiriiska waxa ka jooga bay yiraahdaan 2 kun oo dhakhtar oo Iraaqi ah degan hadda nolosha hadday saa isu rogto muslimku agtooda aqoontu qiimo kuma leh aqoontu bilaash kuma soo baxdo wala maal gashada binaadamka la maal galiya si aqoon u soo baxdo Masar bay yiraahdaan GDP-geeda wax soo saarkeeda waxay tacliimka sare ku bixisaa 0.2 hal 10 meelood loo qaybiyay laba ahaan hadda 1 maaha percent waa 1 kaas oo 10 meelood loo soo qaybiyay laba ahaan ayay tacliinta ku bixisaa Israa'iil oo agteeda deganina almost 5% of its GDP ayay ku bixisaa boqolkiiba 5 wadanku wuxuu dhaqaale soo saaro dhanba higher education ko qura la galiya baxtiga cilmiga in cilmi baaris la sameeyo markay dunida xagga tacliinta qiimeynaya مثلا United Nations التنمية البشرية 2001 كما تقرير كوصو صاري waxay ku tilmaamayaan 5 qaybood bay dunida u qaybinayaan qayb waxay oranayaan waa qaada dunida dadka hogaamiya qaybna waxay oranayaan waa
alqiyaada almuxtamila dad laga yaabo inay dadka waxogaamiye kusoo biiraan qaybna waxay yidhahdaan waa yaro firfircoon yihiin qolana waxaa la yidhaha waa hawaamishta dacallada kuwa jooga qaarna tirada laguma daro shantaa qaybood bay dunida u qaybiyaan 18 hogaaminta dowlad muslimi kuma jirto qaybta labaad oo ah qiyaada muxtamila ayuu taqriirkaasi waagaa Malaysia ku jirtay laga yaabaa imkana Turkigu inuu ku soo biiri karo waagaa Malaysia oo kaliya kaga jirtay kuwan masaarida iyo intan muslimiinta u digdigahay kuwa nashadka fircoonida yara qaba bay ku jiraan bay leeyihiin ee kuwa hogaanka iyo kuwa la filayo inay wax hogaamiyaan mustaqbalka dhow toona kuma jiraan taa macnaheedu waxa weeyaan qiimaha cilmigu xaguu inala joogaa qiimaha cilmigu wuxuu joogaa galbeedka professorka ama ustaadka jooga wuxuu qaataa 50 professor oo muslima mushaharkood meelaha qaarkoodna 100 buu qaataa professorka caalam islaami jooga tacliinta uma hagar baxayo waayo waxa la siyaabo kuma filla shaqo labaad buu daydayaa habeenkiina waxa laga yaabaa inuu xafiis yar fadhiisto ama meel yar oo kale ka shaqeeyo muxuu cilmi baadha wuxuu cunaa buu leeyahay yani waa qof raadacaynaya siduu u noolaan lahaa waa caalamku ku soo hadha intii yaacdayada iska daayay xaggaa qabatay intii soo hadhayna waxay cuntaa bay ka fakeraysaa idan suu baadhisu samayn karaya wax soo saarka ikhtiraacaatka waxaa jira bini aadamku wax kasta oo la soo kordhiyo baraa'atul ikhtirac baa dunida waxa la yidhahdaa baten baa la qaataa qof kasta wax yar dunida ku dara buushka imka bahalkan afka laga geliyey ninkii fikradda keenay cid bay u tahay baraa'atul ikhtirac soo kordhisay 2001 مثلا دولة وين مسلمين تن عربيات مصر ما كم يتصامها 2001 هل بالون ريكورد قرية مصر وحبرات اختراع 2002 جينا مد 2003 يلا بيه طبعا 2004 كي أيامي وحوجا صار نادر وسداد يتطبقات لو قري عالم الإسلام أردن وقتها 2004 كا تركيا وقبض نيدو بقولي أفر برا اختراع بالله قري إسرائيل وكلية متغانين انت الله قري kun iyo 220 shay bay soo saartay halkay Masar midka soo saartay ama markay ugu badnayd 7 soo saartay Israa'iil waxay soo saartay maxay miyay masaaridu Israa'iil ka aqli yar yihiin soo ka tira yar yihiin maya qolana cilmiga qiimo u aragto ay maal gashatay qolana cilmiga gaajaysiiso professor kaaba bakhtinayaba wuxuu cunu daydeeya inuu wax soo saara ka kaalaya waxay dhahdaan Israa'iil waxay ku jirtaa 15 dawladooda dunida ugu soo wax soo saar badan leh baraatul ikhtirac ugu badan cilmi cusub register garaysta 5000 Israa'iiliyana ba qof baa wax soo saar leh marka tirakoob waxay soo saareen iyo tirada la soo ogaa cilmiga keeneen 5000 qof kastaba qof baa wax soo saar leh Mareykankaas ka ballaaran iyadana 6007 qof ba mid baa leh laakiin xagga tiradu kaga badan yahay maadaama xagga tirada kaga badan yahay dee wuxuu soo saaraa 48,870 shay oo cusub baa baatenkooda sanad qura helay Japan 19,980 baateen ay hal sanad qorteen inay soo saareen ashyaa cusub laakiin halka Israa'iil 5,000 qof wax soo saara leeday ama Jabanisku 6,300 qof kasta qof wax soo saara leeyahay Masar waxay yiraahdeen waa 900,000 qof baa mid leh waa 1 milyan qolana 5,000 baa wax soo saar leh qolana 1 milyan baa leh oo dhadhow sira koobiyada waxaan idinku soo naqliyay ina suurad ka qaadataan aqoonta muslimka ee cilmiga halkay taagantay inay dib u sameeyaan waa wax aad u fudud laakiin waxay u baahan tahay caalam islaami dhul khaam u degan yahay oo bisil shidaal iyo macdan iyo wax walba leh dhalin buu haystaa da'yar oo dadka ku nool waxa laga yaabaa 70% inay 30 jir ka yariin dad wax baran kara diin buu haystaa wax barashada amaanaysa
asaasiyeedkeedana tilmaamaysa. idan wax waa la baran karaa. waxaa la leeyahay bulshadii cilmigu uu qiimaha la lahaa iyo hoggaankii qiimaha u arkayay. maanta dowladahan yaryar aynu leenahay tirada badan leh, budgetka marka la dejinayo intaad u malaynaysa in waxbarasho loo qoondeeyo, inteese wax kale loo qoondeeya. yani waxa ay tilmaamaysaa un shaygan innaga qiimaynto agteenna ku leeyihi. markay dowladaheennu waxba nafle ay u ogolaan waayeen ayay waxbarashadeennii oo dhammi private noqotay. markaasay intay sii dhaaftay dee imka waxay maraysaa xataa qur-aan ma baran karti hadda aad lacag haysanay. socankaa ma aha. yani wax bilaashiba ma jiraan. sababtuna waa maxay? system aqoonta qiimaynayaan jirin oo maalgelinaya, iyo bulsho aqoonta qiimaynaysa oo maalgelinaysaan jirin. caalamul islaamigaa la tilmaamayo 130 caalima dunida ugu weyn inay iyagu lahaayeen 120 ka mid ah. dowladdu may maalgelin jireen, bulshadaaba maalgelin jirtay. awqaaf bay waxaasoo dhammi ku socday. dowladduna culamada way karaamayn jirtay, dadka aqoon-yahanka way karaamayn jirtay, jaways bay siin jirtay, waxbay dad nool bay ahayd. waxaan uga dan leeyahay markaa, haddaad maqasho dunaha horu martay, dhidid bay ku horu mareen iyo waxbarasho iyo wax soo saar. bilaash kumay horu marin. cid intay iska seexatay badhaadhay oo horu martay ma jirto. cid aqoon adeegsatay ayaa horu martay. innagana waxba inagama xigaan inaynu horu marno, waxba inagama xigaan. go-aankeenna inaga xiga inaynu shacab iyo dowlad iyo qiyaadaba inaynu yeelano go-aan ah inaynu aqoontu inay qiimo tahay aragno, cilmigu inuu wax yahay. innaga cilmiga waxuma aragno, cilmiga waxuma aragno. haddii marka aynu rabno horumar, waxaan leenahay cilmigu ku diineed oo qofka bini aadamkaa qof nool ka dhigaya, iyo ku adduunyo oo qofka qof noloshiisa difaacan kariya, dalkiisa iyo dadnimadiisa ka dhigaya, waxay ku xidhan tahay sidaynu waxbarashada u qiimayno. nolosha adduune horu martayna waxbarashay ku horu martay. alaab la soo iibsadana laguma horumaro. daara dhaadheer oo la dhiso oo inta gaal la keeno uu daar dheer kuu dhisay, waxaa laguma horumaro. dad kolba carabi tiraahdo daarta dunida ka dheer ugu dheer baanu dhisaynaa, iyaga iyo daarahoodaba dad baa isku leh. iyaga iyo daarahooda iyo shidaalkoodaba dad baa isku leh. waxaa la yaabantiin maxaa farta loogu yeedhaya, maxaa waxaan laynoo leeyahay, maxaa caynka le de waa laynaga xoog batay. waynu seexannay. de haddaad seexatana ogolow. soomaalida maahmahadeedu maxay ahayd? miskiin baa miska la fuulala bay idhahdeen. adduunka cid isuma naxdo, naxariis ma jirtee waa ninkii wax iska dhiciya unbaa dad noqda. soomaaliya way jabtay. maxaa dunida noogu soo horiyi wey? war waa lagu sii korayaa, cid ku soo kicinaysaa ma jirto. mid gaal professor jooga Cambridge University oo kuway ka dambeeyaana ayaa nin sheekho Soomaaliyeed oo ardada meesha wax ka barataaba wuxuu yidhi waxaan weydiiyey su-aal ah, war waddankaygi waa kan degi waayo idinkunbaa ku jira maxaa naga rabtaan? intuu dib u jiifsaday buu cabbaar fakeray ayuu wuxuu yidhi wixii laydinla rabaa weli laydin yeelsiin. maa laydin gelgelayaa intaa haa ka odhanaysaa. wixii laydinka rabay baan weli laydin yeelsiin buu yidhi, tii baydan weli aqbalin. marka inta taa ka gaadhaysaan waa ahaanaysaan buu leeyahay in cankaa laydin wado. calaa kulli xaal warkaygu wuxuu ku kooban yahay aqooni. haddaad aakhiro doonaysana facalayka bilcilm, haddaad adduun doonaysana facalayka bilcilm. وصلى الله على نبينا محمد.